ugu dambeeyay waxa jira gaadiid loo yaqaan gaadiidka technical oo ay wataan shakhsiyaad gaar ah gaadiidka oo loo ekeysiyay gaadiidka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama lagu buufiyay rinjiga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu yaqaano arinta ayada ah oo keeni karta qatar iyo qaladaad badan ku ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sababtoo ah waqtiyada qaar ay falal muxuu ahaa ii sheegay anshax darro ah ama dhaqan xumo ay sameynayaan taasoo muujinaysa in awgaadiidka leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed falalkaasuna ay geysteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan dadka noocaas aan ugu baaqo dhammaan cid allaale iyo cid isticmaalaysa gaadiidka tiknikada ah ee ku buufsan calaamadaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu garanayo ee aan u diiwaan gashanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid allaale cid haysata inay ka waantowdo arrinta noocaas ah hadii lagu arkana gaadiidkaas waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay si buuxda ula wareegi doonaan mar hadii uu leeyahay calaamadihii lagu yaqiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu had ama dad isticmaalaya dariiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo aan u diiwaan gashanay ama aan ka tirsanayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u shaqeeya hay'ado gaar ah shirkado gaar ah ama si meel gaar ah ka shaqeeya arinta marka ayagana waxaan rabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay dariis lagu yaqaano waxa isticmaali kara ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma jirto hay'ad kale oo isticmaali karta ma jirto shakhsi kale oo isticmaali kara waxaan rabaa marka arinta ayadana cid allaale iyo cidda muxuu ahaa ii sheegay arrimaha noocaas ku kacda ee isticmaasha si sharci darro ah ku isticmaasha dariiska ciidanka aydan inaan la tiigsan doono sharciga muxuu ahaa talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ajira maalmihii ugu dambeeyay meelaha qaar isbaarooyin ku soo koran oo ay ku howlan yihiin dad maleeshiyaad hubaysana oo aan ciidan ahayn waxaan rabaa aniga arrinta ayadana inaan ugu baaqo dadka arrimaha ku howlan ee dadka dhibaateynaya ee jidgooyooyinka u dhigaya ee isbaarooyinka u yaaliin ee lacagta baadda ah ee aan sharciga waafaqsanayn ka qaadaya dadka waxaan rabaa inaan ugu baaqo arrinta ayadana inay ka waantoobaan haddii arrimaha noocaas oo kala ah ay ku kacaanna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada amniguba ay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan maxamed muuse maxamed